Waxaa jira shaqooyin qaar oo ka cirib tirmi doona dunida maadaama ay soo ifbaxayaan aalado casri ah oo qaban kara shaqooyinkaas xilli dunida ay ku tallaabsatay horumar weyn oo dhanka horumarinta shaqooyinka iyo wax soo saarkaba. Haddaba warbaahinta ka faalloota ganacsiga iyo dhaqaalaha ee gal ganacsi ayaanu maanta idinkula wadaagaynaa shaqooyinka qaar ee qarka u saaran in la waayo sanadaha soo socda. Qodobka koowaad, darawalnimada ayaa ka mid ah shaqooyinka meesha ka bixi kara xilli waaxyaha gaadiidka adduunka la casriyeeyay, taas oo wax ka bedeli karta dhammaan sida loo howlgeliyo. Waxaa jira malaayiin qof oo ku tiirsan shaqada darawalnimada oo ka cabsi qaba in arrintani ay saameyso mustaqbalka. Sida laga soo xigtay xarunta Goldman, dad lagu qiyaasay 3 milyan oo ku nool Mareykanka ayaa halis ugu jira in ay waayaan shaqooyinkooda maadaama ay soo korodhay tiknoolajiyadda casriga ah ee lagu kaxeeyo baabuurta. Isbedelada lagu sameeyo gaadiidka adduunka ayaa sii ballaaranaya. 25 sano ee soo socota waxaa yaraan doona shaqooyinka darawalnimada. Haatan waxaa dunida la wareegay qalabka tiknoolajiyadda oo ganacsigii iyo suuqyada qabsaday. Xitaa dowladaha qaar waxay bilaabeen xoojinta xirfadaha la xiriira tiknoolajiyadda. Dowladda Jarmalka waxay bilowday in ay taageerto mashruucan, isla markaana waxay daneysay qorshaha ku aadan baabuurta si iskood ah isku kaxaynayo. Waxay sheegtay in meesha lagu gaaro 2040 in baabuur lagu qiyaasay 33 milyan ay gali doonaan wadooyinka dalkaas, kuwaas oo si iskood ah isku kaxayn doono. Qodobka labaad, dhakhtarnimada waa arrin wareerkeeda leh maadaama bukaanada ay ku tiirsan yihiin dhakhaatiirta. Kadib saameynta ka dhalatay safmarka koroonaha, wuxuu isbedelo ku yimid waaxyaha caafimaadka adduunka, waxaana la xaqiijiyay in xitaa dhakhaatiirta ay ku adkaatay inay ogaadaan cudurrada qaar. Taa beddelkeedana lagu ogaado tiknoolajiyadda, waxayna shaqadan halis gelinaysaa qalabka casriga ah ee caafimaadka qaabilsan, sida adeegsiga adeeg la yiraahdo telemedicine oo horseedi karo in dhakhtarku uu xaalad la socdo adiga oo jooga meel fog. Waxay tani dhalin kartaa in laga maarmi karo dhakhaatiir fara badan maadaama la adeegsanayo qalab casri ah. Kadib saameynta koroonaha, shaqaalaha caafimaadka waxay safka kaga jireen la tacaalidda bukaanada uu ku dhacay COVID-19, sidaa darteed qaarkood waxay halis u galeen inuu ku dhaco cudurka. Tani waxay horseedi kartaa inuu hoos u dhac ku yimaado tirada shaqaalaha caafimaadka ee adduunka. Qodobka saddexaad, shaqooyinka la xiriira maamulidda maktabadaha. Dadka waxay haatan isaga tageen maalmihii buugaagta lagu soo akhrin jiray maktabadaha iyo cilmi baarista lagu soo sameyn jiray. Wax kasta waxaa bedelay dunida casriga ah. Haatan waxaa dunida ka howlgala maktabado casri ah. Xitaa baryahan dambe waxaa buugaagta laga heli karaa internetka oo qofka daalacan karo isaga oo gurigiisa joogo. Qodobka afaraad, maqalhayaha ama khasnajiga. Maalmihii hore waxaa jiri jiray qof lacagaha ka aruuriya xarumaha ganacsiga iyo goobaha kaleba, isaga oo kuu soo celinaya baaqigaaga. Qodobka shanaad ee ugu dambeeyana waxaanu ku eegaynaa shaqaalaha bangiyada. Bangiyo badan oo adduunka ku yaala waxa ay haatan yareynayaan shaqaalaha maadaama lacagaha lagu sameeyo adeegyada casriga ah ama dijitaalka. Mustaqbalka waxaa dhici karta in bangiyada qaar ay iska xiraan xarumahooda maadaama adeegyada ay ku fulin doonaan online-ka. Dunida waxaa haatan si weyn loo maalgelinayaa ganacsiga online-ka maadaama adeegyada la xiriira lacagaha la isku marin karo halkaas. Waa 5 shaqo oo ay suuragal tahay in ay dunida ka cirib tirmaan mustaqbalka. Haddaba waa muhiim in qof kasta uu la jaan qaado dunidan casriga ah ee tiknoolajiyadda ku sii horumaraysa.